daawadayaal soo dhawaada meel kastoo ay joogtaan kooxaha Yahuudda ee Mareykanka iyo Yurub ku sugan ayaa ballan qaaday in ay taageerayaan aqoonsiga Somaliland. Waxaan kaloo falanqeyn ku sameyn doonaa Somaliland oo sheegtay iskaashiga ay la yeelanayso Israel in aanu lahayn wax xuduud ah iyo hay'adaha Mareykanka ee sirdoonka oo Trump ku wargeliyay in Netanyahu uu qorsheynayo qalalaase in uu ka abuuro gudaha wadanka Mareykanka si uu uga hortago Mareykanka iyo Iran in ay heshiis gaaraan iyo wasiir ka tirsan maamulka Netanyahu oo sheegay in Lubnaan oo idin la gubo caalamkii ayaa arinta ka falceliyay aad baa loo cambaareynayaa 47 qof ayaa ku geeriyooday wadanka Lubnaan duqeymihii Israel ay halka ka geysatay qodobkaasina waanu eegi doonaa haddii aad saaxiibayaal nagu cusubtiin nagu soo biira waa 20 bisha June sanadka 2026 marka hore barnaamijkeena waxa aynu ku bilaabaynaa xilli Israel iyo Somaliland xiriirkoodu uu sare u kacayo isla markaana Somaliland ay safaarad ka furatay magaalada Qudus ee dhulka reer Falastiin laakiin Israel ay xooga ku haysato ayaa hadda waxa soo kordhaya macluumaad kale oo sheegaya in kooxaha Yahuudda ee ku sugan gudaha dalka Mareykanka iyo Yahuudda ku sugan qaaradda Yurub in ay hadda ballan qaadeen in ay taageerayaan aqoonsiga Somaliland isla markaana ay Mareykanka iyo Yurub ka dhex bilaabi doonaan olole ballaaran oo dabcan lagu dhiirigelinayo siyaasiyiinta Mareykanka iyo kuwa Yurubna looga dhaadhicinayo in ay Somaliland qadiyadeeda ay aqoonsadaan warkaasi ayaa saacadii la soo dhaafay soo baxay warbaahintuna aad bay uga waramaysaa haddaba saaxiibayaal arintan suuragal ma kula tahay in ay dhici karto oo kooxahan Yahuudda ah ee ku sugan Mareykanka iyo Yurub miyay ka dhaadhicin karaan dadka ee halka jooga ee siyaasiyiinta ah iyo ganacsatadu in Somaliland ay aqoonsadaan mise arintaasi waxay u baahan tahay dabcan wax inta ka badan waxaas ogaataa in kooxaha Yahuudda ee dabcan dhaqaalaha badan haysta ee Yurub jooga iyo Mareykanka jooga in ay saameyn ku leeyihiin siyaasadda xitaa Trump la sheegaa in Yahuudda maalqabeennada ah inay soo saareen doorashadii Mareykanka isla markaana ay aad u taageereen marka arintaasi ma kula tahay inay dhici karto sidoo kale Soomaaliya laftirkeeda dawladda federaalka maxaa la gudboon inay sameyso si ay arinta ay uga hortagto mise ka hortagi kartaa qaybta hoose aragtidaada qodobkaasi ku saabsan nagula wadaag waayahay markan waxaanu u galaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Cabdiraxmaan Daahir Aadan ayaa sheegay in xiriirka iyo iskaashiga military ee Somaliland iyo Israel aanu ahayn wax had leh meel uu ku kooban yahay ama uu ku eg yahay ma jirto isla markaana waxa uu gaari karaa buu yiri dhinac kasta oo ay labada dhinac u arkaan in uu dan u yahay oo uu ku jiro amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo iskaashiga militariga ee dhinacyadaasi taasoo macnaheedu uu yahay xiriirkeenu xuduud ma lahan waraysi uu siiyay warbaahin Israel fadhigeedu uu yahay wasiirku waxa uu sheegay inaanay Somaliland meesha ka saarin suurtagalnimada in Israel saldhig military ay ka samaysato Somaliland isaga oo xusay in labada dhinacba ay diyaar u yihiin inay iskaashigaasi ay gaarsiiyaan heer kasta oo dani labada dhinac ugu jirto meel kasta iyo arin kasta oo aan u aragno in labada dal ay wada faa'iideysan karaan waanu gaarsiinaynaa xiriirkeenu amniga dhaqaalaha siyaasadda meel walba ayaa u galaya wasiirku waxa kale uu sheegay in guusha ugu weyn ee booqashada ay ku tageen Israel ay ahayd furitaanka safaaradii ugu horeysay ee Somaliland ay ku yeelato dunida taasoo laga furay Qudus buu yiri in arintaasina waxay kor u qaadaysaa xiriirka labada dhinac haddaba sida wasiirka uu sheegayo maguul bay u tahay Somaliland inay safaarad ka furato magaalada Qudus dhulka reer Falastiin laakiin Israel xooga ku haysato mise guul darro bay arinta ku tahay laakiin iyagana fahamsaneen sidoo kale ma dhib bay u keenaysaa Somaliland inay tiraahdo xiriirka Israel aanu la leenahay wax xuduud ah ma lahan meel walba uu geli karaa arintaasi ma damba ugu jirta mise wali ma aanay fahmin muhiimadda in dabcan dal aad ama maamul xiriir aan la yeelanaysid aad xakamaysid qaybta hoose aragtidaada qodobkaasi ku saabsan nagula wadaag qodobada kale ee barnaamijka ayaanu saaxiibayaal markan u galaynaa waxaanu fiirinaynaa hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa la wadaagay odayga Donald Trump la yiraahdo warbixin ay ugu sheegayaan Netanyahu inuu qorsheynayo sidii uu uga hortagi lahaa heshiis rasmi ah oo nabadeed oo ay wada gaaraan Mareykanka iyo Iran waxay sheegeen inuu ku howlan yahay tallaabooyin lagu jabinayo heshiiskan gaar ahaan qodobada heshiiskan ku jira oo dhigaya inaan la weerari karin Lubnaan
sida uu dabcan shalay baahiyey wargeyska Washington Post oo ku sheegay in uu Netanyahu si walba uu doonayo inuu heshiiskaasi u jabiyo maadaama heshiiskaasi rasmi uu ka dhigayo nabadda bariga dhexe laakiin Israa'iil iyo Netanyahu ay dhibayso nabadaasi warbixinta wargeyskan waxaa kaloo uu sheegay oo lagu xaqiijiyey inay si weyn ay u kala fog yihiin Trump iyo Netanyahu iyadoo isla khilaafkan uu sare u kicin karo baliri haddii Netanyahu ku adkaysto in uu carqaladeeyo heshiiskan haddaba shalayba Netanyahu waa uu jabiyey heshiiskii Mareykanka iyo Trump Mareykanka iyo Iran sababtoo heshiiskan qodobkiisa ugu muhiimsan waxa waaye in Lubnaan aan wax weerar lagu qaadi karin Lubnaan lama weerari karo Iran warkeeda badaa qodobka ugu weyn ee Israa'iil ay ka soo horjeedana waa kaas shalay marka maxaa dhacay isla markiiba sirdoonka Mareykanka ay Trump la wadaageen in Netanyahu ka shaqeynayo in uu burburiyo heshiiskaasi isla markaana Lubnaan uu weeraro isla markiiba Lubnaan ayuu weerar ku qaaday 47 qof ayuu ku dilay wadanka Lubnaan shalay oo kaliya 97 kalena waa uu dhaawacay shalay oo jimco ahayd oo kaliya sida warbaahinta ay sheegayso xitaa waxa arinta xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dawladda wadanka Lubnaan oo tiri 47 qofna waa la dilay shalay 97 kalena waa la dhaawacay caalamkii ay la wadaagtay dabcan waxa dadka dhintay ku jira 7 haween baa ku jira iyo 2 caruura oo dabcan lagu dilay weeraradii diyaaradaha Israa'iil shalay ay ka fuliyeen wadanka Lubnaan isla markii weerarka ay fuliyeen waxa soo hadlay wasiirka xagjirka ah ee Israa'iil amniga u qaabilsan Itamar Ben-Gvir la yiraahdo waxa uu yiri Lubnaan oo idil hal la gubo yiri Lubnaan oo idil waa in cagta la mariyaa oo la guba arintii ba mar kale caalamkii haddana ruuxday isla markiiba waxa ka soo jawaabay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska Kober oo cambaarayay wasiirkan xagjirka ah ee Israa'iil ee ku dhawaaqay in Lubnaan la gubo waxa uu dabcan Ingiriiska iyo wasiiradiisu ay sheegeen arintaas inay tahay dambi dagaal oo caalamka uusan ilmaami doonin Iran iyo caalamkii oo idil way ka hadleen waxay yiraahdeen waa ka wax walba oo Trump ka shaqeynaya oo nabad bariga dhexe ah ninkaasi Netanyahu ayaa burburinaya haddana wasiiradiisu waxay leeyihiin Lubnaan oo idil hal la gubo oo cagta hal la mariyo arintaas oo dabcan mar kale soo xusuusisay caalamka in dagaalkan uusan sinaba u joogsan karin meeshana uu ka socon doono isla markiiba Iran waxay tiri jawaab baan u bixinaynaa haddii dabcan Trump uusan arinta wax ka oran Iran waxay leedahay haddii dagaalkan Israa'iil ay ku sii wado wadanka Lubnaan annaguna waxaan weeraraynaa Israa'iil arintaas oo dabcan Iran ay tiri cid aan uga heebeysanayno ama aan fasax uga baahanahay ma jirto Iran waxa celcelinayay muddooyinkanba Pakistan ayaa celcelinaysay Trump oo lahaa dagaalkayaan sidaan la gaarsiinin yaan Israa'iil la weerarin anaga halka ku jirna waxyaalahaas bay ka shaqeynayeen laakiin hadda waa ka sida u muuqda oo wasiiradii Israa'iil eena doonaya in ay burburiyaan wadankan ama ay gubaan wadanka Lubnaan haddaba saaxiibayaal maxay kula tahay arintan ma arintan waxay keeni kartaa bay kula tahay in Iran dagaalka lagu qasbayo inay soo gasho mise Iran waa inay fahamtaa Israa'iil inay doonayso in ay heshiiskaasi burburiso yuudan ugu jira Iran ma inay fadhidaa mise inay kacdo oo ay dabcan arintan jawaab ay ka bixiso qaybta hoose aragtidaada qodobkaasi ku saabsan nagula wadaag dhinaca kale waxaanu fiirinaynaa ninka Netanyahu la yiraahdo ayaa lagu soo waramayaa in uu cabsi weyn uu ka muujinayo amnigiisa oo uu u baqayo maadaama la leeyahay waxaa soo kordhay beegsiga meelaha uu joogo hanjabaadaha loo dirayo iyo sidoo kale waxaa kordhay in uu dabcan uu fahmayo in inay jiraan kooxo abaabulan oo gudaha Israa'iil ku sugan kuwaas oo ka shaqeynaya dabcan sidii ay Netanyahu ay dib u gaarsiin lahaayeen arintaas oo la leeyahay Netanyahu sirdoonku way u sheegeen way ka warqabsiyeen waxayna yiraahdeen weeraro ayaa kugu soo socda arinta awgeed ayuu cabsi meel kasta uu la joogaa waliba waxa la leeyahay ninka Netanyahu dhulka hoostiisa guriyo ay ka dhisteen Israa'iil buu ku jira banaanka waa uu soo bixi lahayahay ma kula tahay marka inuu goobtaas ku badbaadayo mise wax walba ay noqoto xaalkiisu ma sahlanaanayo qaybta hoose aragtidaada qodobkaasi ku saabsan nagula wadaag hayloobin ee subscribe inoo saarto waxaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan maalin wanaagsan warar kale oo waaweyn oo ku saabsan xaaladda bariga dhexe iyo sidoo kale Somaliland ayaa saacadba saacadda ka dambeysa soo kordhaya
maadaama Somaliland weli safar ay ku joogaan madaxdooda ee Israel wararkaasina si gaar ah ayaan idinku soo gudbin doonaa fadlan subscribe saaro maasinid waxaan idin leenahay maalin wanaagsan